qofka bini aadamka marka la fiiriyo dadku waa afar qaybood afarta mid kamid ah baa tahay adigu waxaa jira qof leeyahay as-sa'iid an-naajih waa qof sacaado ku nool oo noloshiisana ku najaxay meel ka gaaray saasaaje macnaha waxa dhici karta sacaadada waxa u keenay waa qof ganacsi lahaa oo maal qabeen oo lacag helay marka noloshiisina uu ku faraxsan yahay raali buu ku yahay wuxuu qorsheynayna uu helay oo waa naajix way qofkaas waxa kamida ardayga wax bartay ee jaamacadda ka baxay ama dhakhtarka ama injineerka aba kamida ama nurse-ka gabadha ee haddana diinta leh ee sacaadada ku nool marka waxay ku nooshahay sacaado haddana waxay gaadhay goolkeedii iyo najaax bay xaqiijisay waxaa dhici karta gabadha xaafidada ee quraanka xifdisay dhinacna sacaaday ku noosho nolosheeda way ku faraxsan tahay dhinacna waxayna xaqiijisay najaax sababtoo ah quraanka ilaahay oo intaas ay baranaysay bay xifday oo meel ka gaadhay dadka noocaas oo kale ah waxaa la yidhahdaa saciid naajix ah مثلا hooyo waxaa jirta qanacsan oo faraxsan caruurteedii bay tarbiyaysay diintii bartay iskuulkii bay ka saartay meel bay gaarsiisay waxay xaqiijisay sacaado way haysataa najaaxna way xaqiijisay marka waxaa la yidhahdaa saciid naajix awey qofkaas waxaa jira qof la yidhahdaa as-saciidu ghayru naajix waa qof sacaado ku nool laakiin najaax ma haysto waxaa dhici karta gabadhu inayna guursatay ilmaba aan ilaahay siinin laakiin haddana ay sacaado ku nooshahay oo ilaahay uu raali ahsha qalbiga u geliyay waa saciid ghayru naajix soo ma dhinaca markaan fiirino baa innaga noo sawiran waxaa dhici karta iyada najaaxa ilmaha haddaan ka fiirno way dhinaceeda oo ilaahay uma qorin waxaa dhici karta in qofku uusan waxba baranin uusan qur'aan xifdinin gabadhu ay iska xijaaban tahay salaadeeda ay tukato reerkeeda ay dhaqato haddana ay sacaado ku nooshahay waxaan leenahay waa saciid laakiin waa ghayru naajix sababta wax ma ay baranin meesha ree ma ay gaarsiinin waxaa dhici karta caruur inaad dhashid caruurtaadu ay iska yihiin caruur simbal ah guriga isaga kaa jooga qaarkood ay ku shaqeeyaan waxba ay baranin quraanka ay baranin najaaxa runtii aan gaarin laakiin sacaado ku nooshahay marka waxaan dhahaynaa waa saciid ghayru naajix qofkaas oo kale waxaa ka mid ah dadka qaarkood غير سعيد ناجح وقف النجاح قاري لكن أسعادكم ولين بروفيسور دكاس بعد ذكرت قبل النيرسس كا أما قبل الاختراض أما قبل البيزنس كله حيستا العقد بقلال كنا دولار إن حقيقة النجاح الدنيا لكن أين سعادكم ولين بعد ذكرت وهذا ذكرت إن خير لا ذهي وعرور لا ذهي وعرورتادii ay wax baranayaan oo aad najaax xaqiijisay laakiin gabdhahaga ayna xijaabnayn oo aad ku qanacsanayn wiilashaadii ayna qur'aan baranin oo aad ku faraxsanayn marka qalbigii inuu gubanayo oo da sacaado ku noolayn laakiin adduunkii inaan najaax xaqiijisay marka waxaa la yidhahdaa qofkaas oo kale waa naajixun ghayru saciid wey wayna badan yihiin dadka noocaas waxaa jira qof la yidhaahda ghayru saciidin ghayru naajixin sacaadana ma haysto نجاحنا ما قايلين ما هيستو وقفك نرشي سنة عن كوكنا سنين قرشنا عن لهي ميلا أن قايلين وصوكعا وطوسا عنطو عنا والسيحدا ميلا سور وريقا وحكونا ليها قفكاس في البامبو داودا ميلا سكتك تاريها سعادنا ما هيستو نجاحنا ما هيستو تدك أفر تاوي وقف لي هذا السعيد الناجح وضد فرق كيرس أوي تدك سويريه مسلمينتنا way ku yarihiin gaaladana saacada ma bahaystaanba waan qofka leeyahay saciid daaray labada daarood ba saacada ku nool yahay sababta adduunkiina saacadi najaax ku haystaa aakhirna saacadi najaax ku haystaa waxaa jira qof saciid غير ناجح iyo qof naajix غير سعيد iyo qof غير سعيد غير ناجح su'aal baan idin weydiinaya hadii lagu doorasiin lahaa in saacada lagu siiyo iyo in lagu siiyo najaax ka dooran lahayd sacaado dadku waxay dooranayaan inuu sacaado ku noolaado sababtoo sacaadadu waa qofka inuu qalbiga gudihiisa ka dareemo inuu raali noloshiisa ku yahay way dadka badankoodu waxay kaadinayaan maanta ay leeyihiin waa sacaadadaas way xaqiiqo way
waxaad arkaysaa qof wax haysta oo noloshii degan oo aad u malinaysa adigu inuu meel sare saaran yahay oo haddana ku dhaaya habeenkii ma seexdo waan ooyaa waan walwalaa tiiraan yaa idishay ku dhahaya qofkaa waxaa ka maqan sacaadadii baa ka maqan walidaalika waxaan idhi qofka saciidka ah baa ka qiimo badan qofka ku nool najaaxa ku nool